waxaa jira adduun aynanu arkayn. adduunka aynanu arkaynin waxa weeyaan waa jinka waxyaalaha dee waxaynanu arkayn inagu waxay jecel yihiin baa layidhi meelaha uskaga siigadu ku badan tahay, khashinka ku badan yahay, meelahaasay jecel yihiin. marka gurigaaga mar walba waxaad ku dadaashaa in aad nadaafadiisa aad ka shaqayso mar walba. ka ilaali gurigaaga khaasatan cidhifyada, kuraasida hoostiisa, miisaska hoostiisa, ka ilaali siigadu inay dul fadhiisato. waayo waa halkay jecel yihiin inay harsadaan, dugsadaan, seexdaan, fadhiistaan. waxaasaa lagu tilmaamay. marka gurigaaga haddaad doonaysa inuu noqdo meel goob nabadeed, marka inaad fiiqdo, masaxdo, mar walba ka warhay meelayaasha. kolley inta la arkayo un waad nadiifinaysaa of course, laakiin meelayaashan la gaari karin inaad mar walba nadiifiso. waa cidhifyada gidaarka, waa kuraasida hoostiisa, waa tv-ga dabadiisa, waa miisaska dabadiisa, waa kabadhad alaab mar hore malaha bilo ka hor aad ku xiraysay aad alaabtii xagaa ku daynayso. sanadkii hal mar baad malaha soo saartaa ama 2 jeer. meesha goobta aad uga warhay, wiigi hal mar sifee. waxaway gurigaaga siigada ka ilaali. marka anigu waxyaalahaas ma arkayno, ayagu laakiin wayna arkayaan. that's why bay yaa laynoogu mar walba laynoogu dhiirigeliyaa markaan dharka xidhanano ducaa lagu xidhaa, marka dharkaan iska saarano ducaa yaa lagu xidhaa. waxaa jira dikriyo la akhriyo iyo ducooyin la akhriyo oo indhaha ka qaadaya oo inayna arkayn waxaan samaynayno. marka always waa inaynu ku dadaalno sidaynu nafteena u ilaalin lahayn. mararka qaarkood way noo hoos raaci karaan. that's why bay dadku jir xanuun uga cawdaan. guriga markaad nadiifiso muurka xaafadoo dhan baa isbedela. ubadkii way farxayaan, adagii baa farxaya, gurigaagii baad ku raaxaysanaysaa, udgoonkiisii, nadaafadiisii. guriga saad u nadiifisana waa inaad dee meeshaad nadiifinaysa aad gaari karto. that's why baan kuugu dhiirigelinayaa markaad guriga aad wax soo dhiganayso inaad soo dhigato waxyaalo kooban oo xoog u waaweyneyn. waayo markuu wuxuu weyn yahay ma gaadhaysad cirifyadii guriga. guriga waa in la heli karo meel la maro, nafis waa inaad ka dhigi kartood ku sharaxan karto waxyaalo kuu fudud inaad markaad meesha masaxaysana aad riixi karto. markaad wax hagaajinaysa dhinac iskaga yar qaban karto. siigada ka ilaali. siigada, shadaadiinta iyo waxyaalaha inagu aynanu arkayn baa dugsado ay soo galaan. markaa si una u soo gelin ugu dadaal inaad guriga nadiifiso. meel kasta cirif walba nadiifi. waqti jadwal u samayso. waxaad ka dhigan kartaa 2 maalmoodba mar, 3 maalmoodba mar, amba maalin walbaba hadba saad u haleeliso. laakiin marnababa cirifyada guriga, maqsinada, sariiraha hoostiisa, kabadhada dushiisa, muftaaxa laga shido muraaxada, aysiga dushiisa, baashan qaboobisada guriga qaboojiya, cirif kaste waa inaad nadiifiso. haddii kale guriga waa lagu soo dhex degayaa. haddii kale waxaa meesha imanaya isqa qabsi badan, dabuur baad noqonaysaa. qofku si fiican uma fikirayo, mashquulun baad mar walba ku jiri. keligaa ma tihid. marka waxaynu u baahannahay in gurigu malaa'igtu inoo soo gasho, malaa'igtu inoo ducayso. waxyaalaha inoogu ducaynaysa la imano gurigu udgoon inuu noqdo. guriga iyo hoyga aad gasho waa wadnaha nolosha. waa halkaad kasoo shidaal qaadato, ku nasanayso, ku dareemaysa raaxo, ku dareemaysa farxad, ku dareemaysid jacayl. soo gurigu waa muhiim inaad nadaafadiisa ka shaqayso, farxadiisa ka shaqayso, disciplineka ubadka aad ka shaqayso. nafteedana waan u tilmaamaya, adigana waan kusoo xasuusinayaa in intaa lagu dadaalo. guriga nadaafadiisa ku dadaal. waa inaad u diidid guriga malaa'igta mooyaane wax kale inayna soo gelin oo aynanu arkayn, adduunyadan aynanu arkayn inagu. waayo waxbayna yeeli karaan. marka walaalaad baan ku salaamayaa. nadaafada guriga ku dadaal. isbedel weyn baad iska arki doontaa. kabarkaaga hagaaji, si fiican u laalaab. meel kastood alaabtaada ka soo qaadanayso wayna kuu muuqan karaan, kuu fududaan karaan. okay, taasi topic kalenu kaga hadli doonaa. maanta waxa weeyaan nadaafada aqalka. meel kasta hagaaji.